madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa faray wasiirkiisa arrimaha dibadda dalkaasi inuu hogaamiyo wadahadalo xal loogu gaarayo xayiraadda dowladda federaalka Soomaaliya ee sarkaqaadkii Soomaaliya uga imaan jiray dalkaasi. wadahadalada ayaa waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona wasiirka difaaca Monica Juma, wasiirka arrimaha dibadda Rajele Momamo, wasiirka ganacsiga Peter Munya si dowladda Soomaaliya ay xayiraadda uga qaado jaadka dowladda Kenya keeni jirtay Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Kenya Rajele Omamo ayaa kadib amarka madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxa uu la kulmay ganacsatada qaadka Kenya waxa uu sheegay in wada tashiga dowladda dhexe kadib xal loo keeni doono arinta xayiraadda qaadka. dowladda Soomaaliya ayaa xayiraadda jaadka Kenya ka imaan jiray waxa ay saartay kadib markii Soomaaliya laga helay kiisas la xiriira cudurka coronavirus, waxaana intaasi kadib ay shuruudo adag ku xireen in si dib loogu bilaabo qaadka ka imaan jiray Kenya kadib markii khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galay labada dowladood. kulanka dhex maray wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyo ganacsatada qaadka oo ay dhex muuqdeen xildhibaanada laga soo doortay deegaanada sida aadka ah uga baxo qaadka. gudoomiyaha ururada beeraleyda deegaanka Nayamana Mirina Kamati ayaa ganacsatada ka dalbadeen in si degdeg ah Soomaaliya loogala hadlo qaadista xayiraadda qaadka. ganacsatada qaadka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay maalin walba ay khasaarto lacag dhan 5 bilyan oo lacagta Kenya ah, taasina oo keeni karto inay gabi ahaanba joojiyaan ka ganacsiga qaadka. Kenya ayaa dhankeeda waxay horay xayiraad u saartay in dalkeeda loo dhoofiyo waxyaabaha ka yimaada dalka Soomaaliya sida kalluunka qalalan, sokorta, bariiska, hilibka, malabka iyo caanaha.